dhagax oo xalay xaflad ballaaran ku qabatay magaalada Hargeysa ayaa waxay xisbiyada mucaaradka ugu baaqeen inay shacabka ka daayaan hadallada ka soo yeedhayay ah in maalinta ay gaadho 27 bisha aan loo sinayn xilka talada dalka sidoo kale waxay xukuumadda ugu baaqeen inay ilaaliso nabadgelyada dhalinyaradaas oo arrimahaasi ka hadlaya waxa kamid ah hadaladoodii Soomaalidu waxay ku maamulada waxa umusha u dana ayaa ilmahan u dana ayay Soomaaliya waxa u dana waa nabadda nin kale nabadda way ku soo jeeda inaguna way ku soo jeednaaniyo taasi wata xisbiyada mucaaradka ayagana mid baa leeyahay waa ninkii xisbiyada mucaaradka ah oo wax ka tabanayo daadoo dalkaaga aan rabshad iyo waxba ku abuuray taniyo waxa jira sheeg oo waxa u baahanay ta kale xukuumadda haddii xukuumaddu ay ayadu qaado wado wala xukuumaddu wala maxay hay'adaha xisbiyada mucaaradka inuu ka yeelinayo muruqayna maalina qolada xisbiyadana waxaan leenahay dalka salka ha loo dhigo xukuumaddana waxaan leenahay haddii dalka nabadgeliyo darro ka abuuraysa ka yeelin ka taa nabadgeliyo darrada waxa weeyaan oo kale in ummadda khalkhal la geliyo maaha annagu mowqifkaygu haddaan raaxda dhagaxnahay uu cadiyey cid aan durana iyo cid aan taageerana ma jirtay qarannimadaan taageerana hadday xukuumaddu ka soo horjeedana waanu ka soo horjeednaa haddii xisbiyada mucaaradka ka soo horjeedana waanu ka soo horjeednaa caawa halkan waxaan leeyahay gorgortan marnaba geli mayso nabadda Soomaaliya qoladan mucaaradka ee ismidaysatay mid baan leeyahay waxaan leeyahay darunta wanaagsan nabadba wax lagu doonaayo horta colaad wax lagu ma doono aqligu ha shaqeeyo asaakadadii kale u fikira aqli ha lagu daro marnaba suurta geli mayso in la yiraahdo wadankii fawda la gelinaya inaga daa ilaahay baa inaga yeelay barunta hadii laga hadlayo kowdii waayo wadankii saas oo dhan lagu soo dhintay haddana mar labaad baa fawda gelinaya wax dhacayso ma haddaba markaa waxaynu ku talinaynaa caawa horta xukuumadda mid baan Allah waxa oran lahaa horta arintu meel xun bay gashay waayo guurtidina mowqif adag bay qaadato waxay tiri anigu kama noqonayo go'aankayga waxa u dhaxeeyaan wax badan maaha waa 3 bilood oo kaliya haddii lagu daro iyo haddii laga reebo wax badan tari maayo waayo dadkii dhintay ayaa ka badan 300 oo qof iyo in ka badanba markaa runta wanaagsan 3 bilood waxa soo buuqa la geliyo maahaba hal isku tanaasulo markay sidan oo kala taagan tahay mar walba waxay ku gabadaan Soomaaliland waxa saa dhacaya war Soomaaliland waa halka beritoole ka doonayso cod waa halka beritoole ka doonayso inaad maxaa la yiraahdaa aad ubaxa dalka aad hogaamiso markaad maanta tiraahdo xilligan marka jooga Soomaaliland ma jirayso beritoole xageed wax ka doonaysa adigu ma cid ku siinaysa markaad maanta tiraahdo Soomaaliland ma jirto dad waalan maaha waa lagu xisaabinayaa wax weeyaan miiskaan uu keenayaa taariikh bay kugu galaysaa markaad maanta leedahay Soomaaliland ma jirayso waxay madow gelinaysaa taariikhdaadii